maanta sheekadani waxay ku saabsan tahay waraabe. waraabuhu waa xayawaan ka mid ah xayawaanada ku nool dhulka ay Soomaalidu degto, isla markaana Soomaalidu ay tusaale ugu soo qaadato qofka wax walba booba ama dhaca, uguna yeedhaan magacyo badan sida Cali Lugyare, Cali Laangare, Dhurwaa iyo qaar kale oo la mid ah. waraabuhu gurxumaalka uu ka gaadhay ayaanu habeen iyo maalin keliya nasan, hataa haddii uu si walba u dhergo. deegaanada ugu dhow ayuu habeen walba weerar ku soo qaadaa. waqtiyada ka mid ah waxaa la sheegaa inuu waraabe uu sahansaday aqal ka mid ah aqalada ku dhow agagaarka uu ka ugaadhsan jiray. fiidka markii ay tahay ayuu xerooyinka xooluhu ku jiraan ku dul wareegi jiray, waxaanu arki jiray habeen kasta xoolihii oo qof dumar ay ka lisayso, kadibna qof kale oo xerada afkeeda jooga weel caana ku jiraan ama weel madow ay u dhiibi jirtay. waraabuhu waxaan la isku dhiibayo weligiis ma weydiin, mana yaqaan. waxa keliya ee uu sugayaa waa inta ay dadka guryahooda galayaan si uu xoolaha uga soo dhaco. habeen walba magacan caanaha ayaa dhagihiisa ka batay, laakiin waxa uu ogyahay, laakiin waxa ay yihiin ma ogaa. maalinkii dambe ayaa waraabihii la weydiiyey, war waraabow caanaha ma taqaan, adhigunbaa taqaana sida loo boobe. markaas waxa uu ku jawaabay, maya, laakiin waxa madow ee muska laysuga dhiiba. sheekadani waxay ka turjumaysaa in qofku waxaanu cilmi u lahayni ay adag tahay sida uu u fahmaa ama waxa u muuqda. Soomaalidu waxay tidhaahdaa qof meel u cad tahay meel ka madow.